goorma ayay kugu soo dhacaysaa kontigaaga $1,400 ama goorma ayay kugu soo dhacaysaa bangigaaga ama gurigaaga kugu imaanaysaa check joogto ah haddii aad tahay waalid caruurna aan leedahay 3,000 ama $3,600 hadda waxaan idiin sheegayaa inaad lacagtan aad filataan goordhow inay idiin soo dhacayso waxaa la filayaa ama la qiyaasayaa inay idiin soo dhici doonto akoontigiina ku soo socoto March 2021 غير لكن أنت إنك إيش كورين غير شرفت له وحن رباه أما إذا كنت صنيع إن channel كي يوتيوب محمد فارح سبسكرايب جريسان لا صعوتان برنامج ياشا إذا يسوق بينا عند قطان صاحبه أما تحنك كحرن هذا بقى وحن رباه إذا إنك إيش كيو أغلى كهوسة برنامج كي American Rescue Plan $1.9 trillion كي شلي أو سبتيا أيه أنصحيان وحنا وأنصحيان سيدتنا كنتم ديمقراطية وحدنا هني يي بالكام وأقولنا هاي أفرتني سجال ريبابليكان ويديدين سلاس وحكوه رجالي برنامج كي American Rescue Plan ومدحونا بايدن ربي يقول دقالها American دب أبوي يقلله لكن مدحونا بايدن لو ما دريو ما دام صدق قضب أو مهمة لقى بدلي أقل كهوسة بيلكي أنصحيان وحد دب لو علينا بيلكان مركلة إن جعنت وتاجان تهاي أقل كهوسة أمريكا كيه جامين نانسي بلوسي هذا هو محي صدق القضاء مهم كأه اللي جاب بدلي أقل كهوسة بيلكي سواء أنصحيان أقل كسر بدلن كو وعني بلامن تيجي واحد $4 أسبوعي إن لصيو جو مانشن أو أحد ديمقراطي سنة تركسو قالوا ويست فرجينيا أياد دي ريبابليكان كأيو كراعي وحير العكس أدي بدنتهاي صدق $4 أسبوعي على قديجو $1 على قدجرو سيدو كله waxay diideen mataqaana Republicaanka iyo Dimuqraadi qaara toddoba Dimuqraadi kamid ah in $15 saacadii lagu shaqeeyo shaqaalaha Mareykanka u badan yihiin dadka shaqeeya warehouse-da cashier-da Walmart-ka McDonald's-ka $15 minimum wage in laga dhigo waxaa diiday konta Republicaana iyo toddoba Dimuqraadi oo ku raacday arrinkan waxay ka careysiisay dhammaan xisbiga Dimuqraadiga aqalka hoose iyo aqalka sare kamid ah oo hogaaminaya Bernie Sanders iyo gabadheena Ilhan Omar oo aad iyo aad uga carootay maadaama toddoba aqalka hoose aqalka senatarka ah oo senatoriyaal ah ay diideen $15 minimum wage in shaqaalaha Mareykan la siiyo adigoo yiri lacagtaas way badan tahay $7.25 ha joogaan meeshooda ha ku ekaadaan iyo sidoo kale waxyaalo kale oo aad iyo aad u yar ayaa laga bedelay sidaas daraadeed biilkan waxaa loo celinayaa أقل قهوسة هذا بقى أقل قهوسة محل فليا ورمونا بيلك أتجيا مدحوينا بايدن صحيح يا لعكتر ضمانتن أو ذهلنا بيلك أقل كسر أصحيان محاك كجرا أما محيك لو كبدلين وحنربع إذا يكر مرة وحقد بدل مهم كأه وإيسان تاون ديمقراطي يكون ديدين مريان كوني أفر بقول قفل بو أمريكنا أيه هلايو لكن تقدر محل واحد إنكم جاب وأيضا أي قرشة كبدلين 8,000 iyo wixii ka yar suubiyo 1,400 way helayaan lamaanaha isqabo 160,000 haday suubiyaan ayaguna ma helayaan hadaba sida ogtihiin biilkii hore wuxuu ahaa qof walba oo Mareykan $1,400 helaya ama lacag badan ha suubiyo ama lacag yar suubiyo income cap-kana waa lagu daray so $1,400 waxa helay kaliya 8,000 wixii ka yar suubiyo mid qodob kale muhiim ah qof walba oo lagu xareystay wuxuu helayaa lacagtan $1,400 ama ha weynaado ama ha yaraado ama school ha dhigto ama khalid ha dhigto biilashii hore stimulation hore sida ogtiin waxay ahayd in qofka hadii lagu xarayso dependent yahay uusan helin $200 $600 ilaa $500 laakiin tokadan qof walba oo Mareykan ah oo lagu xaraystay ha weynaado ha yaraado uu helayaa $1,400 gobolada Mareykan waxay helayaan dhammaan $350 bilyan ee dhaqaalahooda kor ugu yeelanayaan oo u soo qaadaan small business kana ee lacag badan siiyaan $300 unemployment ayaa helayo waxay soconaysaa ilaa September 6 waa weekii $300 oo yaraa 20 milyan oo Mareykan ayaa qaarato oo shaqo la'aan ah $300 asbuuci ay helayaan ilaa September 6 $20 bilyan waxaa la siinayaa dadka guryaha rental-ka oo iska bixin karin low income ka degan section 8 ka degan hadii aad guri kaliis iska bixin weysay dhaqaale darri ku dhacday fadlan la xariir gobolada programka ay bixinayaan ee federal programs ka jira guryaha dadka laga caawinayo food stamp-ka waxa loo kordhiyay 13% هذا بدنا يا فورستان قاتو 880 مليون دولار يا لسينيا لعقتي يا فورستان والله قدرة يا
sidee mataqaana oo la tacaala carruurtoodana si fiican ugu koriyaan arrintan waxaa leeyahay carruurta gaara child poverty-ga ayaa aad iyo aad u dejinaysaa maadaama lacagta loo kordhinayo dadka food stamp ka qaato child tax credit oo barnaamij aad iyo aad u xiiso badan ah sidoo kale qof walba oo cunug haysto oo waalida wuxuu helayaa 6 sano iyo wixii ka yar cunug haysto 3600 sanadkii ama waxaa loo siinayaa bille oo July ka bilaabanayso ama wuxuu door bidayaa markuu canshuurta xaranayo sanadle inuu u qaato sidoo kale 6 sano ilaa 17 sano cunugii jiro wuxuu helayaa $3,000 sanadkii bish ama bil ayuu door bidayaa in la siiyo bil walba waalidka la siiyo oo July ka bilaabanayso ama canshuurta markuu xaranayo ayuu wuxuu leeyahay hal ii siiyo sanadlihii hal mar barnaamijka sidoo kale waxaa ku jira ansixiyeen small businesses in la caawin doono PPP paycheck protection program EIDL oo small business ka $5 bilyan la siin doono iyo qodobo kale oo aad iyo aad muhiim ah oo dib loogu yeelin doono iskuulada in lacag la siin doono oo maadaama iskuulada ay high schoolada dib loo furayo jaamacadihii ayagana in la siin doono biilka waxaa lagu qaasino yahay biilkii abid ugu fiicnaa ee aqalka sare iyo aqalka hoose Mareykan la ansixiyay wuxuu ahaa bil aad dimuqraadiga uga soo shaqeeyeen ee ugu talagaleen dadkii doortay inay abaaldhig uga dhigaan maadaama iskuuladii la caawinayo carruurtii la caawinayo food stamp la kordhinayo guryaha kirada eviction laga soo bini karin oo la rabo hadii kiralaanku u dhacdo lagu siinayo waxaa amaanay Sherrod Brown oo ah aqalka sare ka soo galo gobolkan aan joogo Ohio ayaa yiri intaan ku jiray aqalka sare weliga alle biilka fiican ma ansixin ama intaan aan siyaasiga ahaa arrinkan aad loo madaxweyne Biden markii ansixiyeen aqalka sare aad iyo aad ayuu u amaanay Jack Schumer oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda sare dimuqraadiga maadaama si fiican uga soo shaqeeyay compromise uu suubiyay unity uu sii kontankii xisbiga dimuqraadiga ahaa ee wada ansixiyeen maadaama 49 hal dheeri ay ahayd toqadan hal aqalka sare ah oo Republican uu tagay laakiin hadduu joogi lahaa qofkaas aqalka sare siyaasigaas oo Alaska uu joogi lahaa konton noqon lahaayeen markaas waxaa vice presidentiga ayaa soo gali lahayd gabadhana Kamala Harris ayada ayaa mataqaanaa oo raaci lahayd breakdown ka taaga soo gali lahayd biilkan sidoo aan ku ansixidana biilkan aqalka hoose ayaa loo diray isla xalayba isniinta ayay floorka keenayaan waxaa la filayaa inaysan waxna ka bedelin sidiisa ay ku ansixiyaan maalinta Talaadada ayaa loo cod qaadayaa Biden waxaa la rajeynayaa in uu saxiixo oo biilka sharci geliyo March 15 inta la gaarin March 14 ilaa March 15 in miiskiisa aqalka hoose Oval Office White House ka la keeno oo saxiix sharci ka dhigo waxaa la filayaa isla markiiba in jeegan directly dadka uu gaaro $1,400 caawintaankooda dhammaan loo siiyo unemployment-ga isla markiiba by March 20 ilaa dhamaadka bishaan ku jirna ee March sidoo kale waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo barnaamijkii caanka ahaa paycheck protection program wali wuu socdaa oo lagu taakuunay small businesses haddii aad tahay sole proprietorship self employed independent contractor oo canshuurtaada aad ku xareysid schedule C 1099 aad qaadatid barnaamijka lacag badan ayaa ku taalo fadlan gross income ka ayaa lagu buuxinayaa line 7 ayaa lagu buuxinayaa ama line 1 oo gross ka awal xal isticmaal jira net income ka hadda line 7 ayaa la isticmaalayaa lacag badan ayaa inta fadlan barnaamijka ka faa'iideysta bangiyaashiina ka buuxsada dad business leedihiin ama financial tech companies ka buuxiya haddii aad Columbus joogtid oo aad Columbus ku nooshahay aniga ayaa buuxiya xafiis ayaan waxaan ku leeyahay Banaadir Mall aqal xafiiska waxaa numberkiisa 31 fadlan email haddii aad suubisay maximum $100,000 $20,000 ayaad helaysaa haddii lagu ansixiyo SBA ku ansixiso weey $20,000 ayaad helaysaa ansixinteeda waa inay ku soo baran application-ka markaad buuxisid haddii kale se waxa waaye way ku diidan application-kaaga waxaad u baahan tahay qof si fiican u yaqaan application-kaaga buuxiyo waa idin la socodsiin doonaa barnaamijkan wixii ku soo kordha Talaadada ayaa inoo ballan insha Allah munaanadkii ayaa la gaaray Talaadada markay ansixiyaan aqalka hoose yani insha Allah idin la wadaagi doonaa bal sidii u kala codeeyeen iyo wixii ka dhacay waxaan rajaynayaa in biilkan wax isbedel amendment kale aysan ku suubin aqalka hoose ee hogaaminaysa Nancy Pelosi ee maalmariso hadaba accounting lacag ayaa kugu soo socoto guriga lacag jeeq ayaa kugu soo dhacayso isku diyaari si caalamiintee haddii aad waali tahayse min $1,400 cunugii ku qaadanaysaa iyo $3,600 ama $3,000 lacag badan ayaa suubinaysaa ka faa'iideysta lacagaha idiin soo socoto
وتاجرتان كيسي أما عدنتي هذا عود السن أبالجودو إذا كذا دقة بايدن يحسب الديمقراطية وأنا يوم محمد فارح هذا الناس عصيني وأنا أتلاقى إن شاء الله.